بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكلنتي دم ومرلبات إيه كلنتي دم به وحلا يا أصحابته مع عافيمات قبطان ومرلبات أنا جو عافيمات قبا إذن كانوا حان ذكر شينيا إن عافيمات قبطان إن وحان إيه أدوم هاد علينا أصحابته مركا ويان مع شركة إيو إيجاسور رادية إيو ودي سبكة إنت هايسة إنت كلنا ما بهايسو إن مركب حنلاقي آد بدو مهتسنتهين إن ما إن شاء الله بإذن الله وحين فيديو جينا قصة قادم دونا هب دقن كيني يهبلهني صوماليات وأوهم قلتاجية إن قالوا دقن كيف فعل كي قال هذا إن جب قال ذا إنه قال ذو إن دقن كينا ويكسلوي نسيان maxaa adiga ku diiday inaad ku xaragooto dhaqankaaga iyo diintaada maxaa ku diiday iyagu waxa ay ka khashaafaan inay ku xaragoodaan dhaqankaaga Soomaaliyeed iyo diintaada iyagii adiga dhaqankoodii iyo diintoodii ayaa la xayeysiinaysaa maxaa ku diiday inaad dhaqankaaga iyo diintaada ay iyagu kula xayeysiiyaan oo ay haddaba waxaan maanta insha Allah biidmillah jecelaynaa ku soo qaadano waa inantan kaaga muuqan doonto iyadoo kaliyana maaha waa hablo badan oo Soomaaliyeed waxaynu ognahay oo maalmihii u dambeeyay social media kala wada socoteen in laga furay geerash waxaynu maqli jirnay geerashka gawaadhida laakiin hadda waxa soo baxay geerashkii dadka geerash oo lagu habeeyo dib habeen waxaan maqli jirnay gaadhigaas xumaaday waxaa xumaaday dib habeen geerash ayaynu maqli jirnay laakiin imika waxaa jira geerash dadka lagu habeynaayo oo ku dhex yaala Soomaaliya runtii dadkii dabadaha tagay waxa ay soo waarideen dhaqan gaalood yaa laha mayna Soomaaliyeed baa oran jirtay aan isduro dibintayda may ahaan jirin madiin islaam baa ku sheegaysa inaad dibintaada durto oo aad weynayso dibintii wixii muuqaalku Ilaahay ku siiyay ma mid aan ahayn ba quruxa wixii kale wax lagu dara ama lagu saayidiyo ama laga nusqaamiya ma qurux bay tahay laakiin mise quruxdu Ilaahay ku siiyay ba quruxa ma tuu alla ku siiyay ayaaba quruxa waxaad arkaysaa inay ku soo badanayaan hablo xubnaha qaar weyneynaya waxaynu ku naqaanay wadamada gaalada waxaynu ku naqaanay dumarka gaalada waxaynu ku dhaqaanay dhaqanada xunxun hadda sawirkeedaan idin soo tusi waad arki doontaan sawiradeeda wayada oo bushintii laga duraayo oo irbadii falkii lagu wado iyada oo inta chemical la mariyay dibnaheedii baa chemical la marinaya chemical marka la mariyo waxay dareenkii ka tagaya dareenkaasi markay suuxdin noqoto way duraysaa subhanallah ma abuurtii alle ayaad qawaday ma sidaasaad waliba ku rabtaa la kulanka alle oo maalin maalmaha kamida aad rabtaa inaad rabbiga la kulanto ilaa qasab waad la kulmaysaa marka aad dhimato dhimasha ka horeysa marka aynu rabbigii la kulmayno Soomaa waad dhiman qabri baad gali marka qabriga gasho waxa aad la hortagaysa Allah subhanahu wa ta'ala rabbiga baad la kulmaysaa ma waxaad la kulmi doontaa adiga oo abuurtiisii diiday ma waxaad rabbiga la kulmaysaa adiga oo dibintu ku siiyay mid aan ahayn ma taasaad la kulmi doontaa markasta waxaan jecelahay inaynu hablaha walaaladeena ku wacyigelino waxa wanaagsan maxaa dhaqankan gaalada iyo qarmuunka aad u waaridaysaa maxaaba aad u xayeysiinaysaa dhaqan gaaleed maad ku faanta xijaabkaaga oo aad waliba bartid naagta gaalada ah sida xijaabka loo xidho maad bartid gabadha gaalada ah sida loo daysto dibintu alla ku siiyay maad bartid sida aad midabkaaga u ilaashan lahayd maad bartid si dhar kugu laag oo kugu filan oo aad xijaabo qurux badan aad u xidhat sida aad u xidhato maadiyada u bartid haddaba waxa aan fariin u dirayaa hablaha maanta ku fakaraya abuuristii wanaagsaneed ee quruxda badnayd ee uu Ilaahay siiyay kuwa qawadayo Ilaahay wuxuu ku yiri waxaan ka abuuray buuray suuratii ugu quruxda badnayd maalaha baad beeneen marka wuxuu kugu yiri suuratii ugu quruxda badnayd baan bini aadan ka abuuray maalaha gaasad beeneen doontaa
ma allahaaga isagu kuu dooray suurad tii ugu quruxda badnayd ayaabaad beeneen waxa ku soo badanaya waddankeeni Soomaaliya waad arkaysaa ilkihiyo la kala reynayo waxaad arkaysaa dibintiyo la durayo la weyneynayo waxaad arkaysaa xubno kale oo aan sheegi karin oo irbada lagu mudayo haddaba maxay tahay chemical lagu qaaduraya ma aha wax kale ma aha hamoodin dibin lagu weyneynayo waa chemical iyo daawooyin baa soo bararinaya waxa aad ka qaadi doontaa kansalka labadiisa nooc waxa aad ka qaadi doontaa cudurro aanad garanaynin dadkii lahaa ee feerastigii bilaabay baa ogaaday maanta abuurkooda iyo siduu alla u sameeyey inay qurux tahay iyagii baa ogooday waxaad arkaysaa social media waad aragtay nin gaala qisadii maalmihii u dambeeyay aynu ku arkaynay social mediaha nin gaala hadda waa nin gaala oo kristan ah oo aan diin haysanin ayaa wuxuu sameeyey wiilkiisii uu dhalay baa isqorqoray gabadh buu isku eekaysiiyey barti uu taagnaa baa wadna garaac ku dhacay wadna garaac baa ku dhacay waa ninkii kristanka ahaa adiga oo muslina raadinaya adoo naagabad nin raadinaysa adigoo ilaahay suuro qurux badan ku siiyey ayaa leedahay dibin baan duranaya adigoo ilaahay qurux badan ku siiyaa daasada oo halkan daloolinaysa oo halkan daloolinaysa oo sankii daloolinaysa oo dibintii daloolinaysa oo duraysa oo weyneynaysa oo aad bishintaadii biro ku xidhaysa oo aad carabkii ilaahay ku siiyey quruxda badnaa aad biro ka laalaadinaysa oo ilaah adiga oo gabadh muslim lagugu dhalay oo haddii doono qaar waxaad arkaysaa waxaad arkaysaa awlaad culimo dhashay oo aad waxaan ku yidhi culimadii dhalay iyo waalidkii sida waxaan u soo tarbiyadeeyey baabiinaya magacoodii baabiinayaad arkaysaa waalidkaaga isaga camalkiisii wuxuu la tegi doonaaba waxa weeyaan ilaahay buu la hortegi waalidkaa wixii wanaagsanaayo uu qabsaday isagaa walaa waasiratu wisra ukhra qofna dembi qof kale leeyahay qof kale lama saaro laakiin adiga xasuuso maalin la kulanka rabbi inantan bishimaha duratay ee dibnaha dawada kimikada intay la dhacday dibintii weynaysatay inantan carabka biraha gashatay inantan sanka dalooshatay biraha ka lushay inantan garhka dalooshatay inantan xundhunta dalooshatay inantan dhisaynkeedii iyo muuqaalkeedii wanaagsanaaye uu rabisiiyey iyo wejigeedii iyo facekeedii chemical la dhacday rabbigaaba hadda imika waxaaba u daran oo aan la yaabanahay oo aan leeyahay dawladdu waxaan diinta islaamka ahayn ila waa kuwii u dhaartay dadka waxay yidhahdeen waxaan wallaahiya oo kitaabka gacanta saaray meelaha ganacsiga ay ka furteen ee dadkoodii lagu qalqalaayo dadkoodii irbadaha lagu mudmudayo ila diintan iyo dadkan iyo dhaqankanba xil baa kaa saarane maxaa kula gudboon inaad ka qabato meelahan aad furatay cashuur baad ka qaaday liisankii baad siisay ganacsiga meel buu furtay adiga ayaaba ka mas-uula in hablahaagii yareeraa ee Soomaaliyeed iyo dumarkii waaweynaa ee aan caqliga lahayn ee la leeyahay dibin weyn baa qurux badan ee irbadaha iyo kimikada lala dhacayo qiyaamaha ninka madaxda ka ah iyo dadka madaxda ka ah ayaa qiyaamaha la weydiinaya u diida oo marka ay meelahaas oo kale laga samaynayo waxaan diintaada ahayn lagu soo waaridayo ka qabo oo kala hadal de maxaaba laga hadlay waata Cabdimaalik Muuse Coldobo wuxuu xidhan yahay soo maahan naa kristan uu yidhi oo baadariyada war eega waxa ay dalka la waday ku xidhantay soo maaha waxa ka qayb qaadanaya dhaqanka iyo diinta lagu tumanayo waxa ka qayb qaadanaya waa dadka mas'uuliyiinta ah waa madaxda ayaaba ka qayb qaadan ilaahay iyagaan weydiin doona yawmal qiyaamaha ilaahay iyagu weydiin boqolkiiba boqol waxaynan dhaqan u lahayn ayaa soo batay qoomuluud baa Soomaaliya ku batay miyaa la yaqaanay ninka dhariga kariyaa la oran jiray waa maxay qarqadahaniye maantana nin naag iska dhigay baa la arkayaa miyaynu naqaanay dhaqanka subxaanallah akhru saban baa lagu jiraa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahayna badbaadiyo oo dambigeenii hore iyo keenii dambaba ilaahay dhaafo inaanu
ilaahay inaanu shaydaan ilaahay waxa xun mu ahaanin shaydaan baa waxa xun oo dhan iskale ilaahay waxaan weydiisanaynaa in aanu ina fidmaynin shaydaanku isaga ballankuu alla la galay buu ku jiraa ballankuu ilaahay la galay oo uu yidhi waxaan naarta ayaa samaysanayaa cid aan ila gala jahannama dhaya looma abuurin nooma naqulu lijahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min masiid wa uslifat aljannatu lilmuttaqiina qayru baciid jahannaba ayaa qaylinaysa wax hadhaaya ma hadheen jahannabana ciyaar looma abuurin dad baa laga buuxinayaa dhagaxii ayaa dad baa layidhi laakiin dad baa laga buuxin jahannaba naartuba shaqa ayay u baahan tahay waxaan idinkaga tegayaa waa walaashiinoo idin leh please subscribe iyo like waa xaggiina assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu